ninkan waxa uu sameeyay waryaabisa aabihii iyo meeyda ayuu keenay bangiga si uu u hantiyo oo u dhaxlo hantidiisa oo dhan daqiiqad ka hor waxaynu arkaynaa wiilkan oo u keenay gabadhan dhammaan waxyaabihii looga baahnaa si uu lacagta aabihii ka dhintay oo u qaado laakiin iyadu waxaasoo dhan ma jeedo iyada ayaa isku maqan wuxuu ku leeyahay macala shahaadadii dhimashada oo ku wada oo 3 cisho ayaa kasoo wareegtay dhimashada aabihii wuxuuna ku leeyahay maxaa naga dhiman waxay ku tiri qof aanan joogin dhaxalkiisa lama wareejin karo isla markaana wax dhaxal uu leeyahay cid lama siin karo waa inuu qofku joogaa dhaxalka laga wareejinayo taas uma ku bixin karnaa waxaan oo dhan waxay u sameynaysaa inay ku adkayso macaamiisha isla markaana bangiga ay baaqi u noqoto lacagtaasi isla markaana xeerarkan waxay u adkeynaysaa kaliya inay lacagta la wareegaan waxana waxay ku shaqaystaan aad buu ka cadhooday arinta ah iyaduna way ku digatay waxay ku tiri ilaa qofka iskala lacagtan u yimaado lama saari karo tanna waa balaan iyadoo soo degtay isagu wax xanaaqay laakiin waa u fikiray wuxuuna yiri hadii aad cadhooto halkan wax badan ba kaaga burburaya laakiin adigoo xeerkooda raacaya waa inaad kuwan la gurisaa isla markaana wax walba sida ay rabaan aad u samaysaa waxa uu imanayaa ninkan oo loo yaray isla markaana aabihii saaxiib ahaayeen oo abaal badan u hayay wuxuuna ku leeyahay wax walba inuu qaadato waa inaan meydka aabaha iyo jirkiisa inta aanan la aasin aan geeyaa bangiga isla markaana aan horgeeyaa kuwaas waxaynu arkaynaa iyadoo u timid managerka isla markaana u sheegaysa in lacag malaayiin ah ay u seef gareysay bangiga isla markaana u xaqeeda siiyo oo lacagta bar loo diro waxayna u sheegaysaa tan inay tahay takaliya macaamiil badan ay ku hanan karaan isla markaana maalgashi badan ay ku sameynayaan waxaan oo dhan iyadu waa wax ay sloog yihiin managerkeeda oo ay sameeyaan kadib waxaynu arkaynaa in uu soo sameystay warqadii sharcigii isla markaana loo ogolaaday inuu aabihii saari karo isla markaana uu geyn karo meeshii uu rabo waxaynu arkaynaa in uu soo noqday isla markaana uu yimiday goob kale oo TV-ga wuxuuna ka codsanayaa TV-ga inay tagaan isla bangiga isla markaana ay wareysi ka soo qaadaan isaga ayaa imanaya goobtii wareysiga lagu qaaday labadood waxay sheegayaan macaamiisha u wanaagsan isla markaana ay u fududeeyaan isagu laakiin wuxuu xanuunsanayaa eriyadii khaldana ay ku lahayd aabaha lacag ma haysto lacag halkan uma taalo iyo waxyaabo khariban oo aabihii ay ka sheegaysay iyo sidii ay ugu digatay ku tiri waa inaad aabaha meesha keentaa iyadii ayaa u imanaysa waxay ku leedahay inaad wax qaldan samayso isku dayin kaliya aan waxaan xeer uma raacay waxbana aan kuugu xadgudbin haddii wax qaldan aad samayso booliska ayaan ku wacaya halkan iskaga tag laakiin isagu uma jawaabinay waa ka dhaqaaqay ugu dambeyn waa loo ogolaaday wuxuuna u yimid aabihii isaga oo raali gelinaya khaladkan uu sameeyay laakiin uu sheegaya inay tahay takaliya qoyskooda uu ku badbaadin karayo wuxuuna xasuusanayaa xusuustii aabihii dardaaranka ahaa in uu reerka isagu nin u yahay isla markaana uu badbaadiyo taasina waa xusuusta kaliya mar walba niyadiisa ka bixila ugu dambeyn aabihii ayuu soo qaaday wuxuuna yimiday bangigii si uu aabihii u geliyo bangiga kadibna waxa soo baxaysa lejimadii security ayayna ku amraysaa in qofkan meesha laga dhaqaajiyo laakiin isagu markuu soo dago way yaabaysaa waxayna ku leedahay halkan maxaa ku keenay waxaad rabtana maxay tahay dad dhaqaaqi weydo booliska ayaan kuugu wacayna hal su'aal baan ku weydiinayaa buu ku yiri maxaa shardiya si aan hantida aabahay halkan uga saaro waa in qofku halkan yimaada dhaxalka iskala bay ku tiri isla markaana isaga ayaa la dhaxlaya Soomaa waa in qofku yimaada lama bahadlini waa la dhaafay kadibna waxa lagu yiri kaalehay aabahay waa kane kaalayo arag oo aabihii ayuuba wataa waxaan ka codsanayaa muuqaalkan aad like garayso magaalada kugu soo gaarin commentiga noogu qorto isla markaana muuqaalkan aad noo sii share garayso si uu dad badan u gaaro iyadoo naxdin ayay kala dhacaysaa iyadoo la yaaban waxa meesha ka socda kadibna gudaha ayuu gelinayaa wiilkii yara ayaa waxa uu gudaha soo galiyay meydkii aabihii isaga oo wada isla markaana diyaar u ah inuu qaato dhaxalkii aabihii tan waxay noqotay mid dadkii meesha joogo dhan ka yaabsay isla markaana cid walba ay aad ula yaabto dhalinyartii meesha joogtay ayaa duubayay oo saxaafadda ayaa joogtay wax walba oo ku dhacayna uu sheegaya isagoo kule waxa waajib lagaga dhigay qofkii dhaxalka lahaa inaan keeno waxayna igu khasbeen in meydka aabahay aan halkan keeno isla markaana aan soo kaxeeyo waxaanu arkaynaa in shaqaalihii aad u yaaban yihiin saxaafadduna ay aad u faaqidayso isla markaana ay duubayaan sawirayaanna kadibna waxa soo baxay managerkii marka warkana aad buu naxaya war muxuu ku dhiman buu leeyahay marka aad halkan keenayso meydka maxabaladu haysataa ukaadi buu ku yiri waxaan oo dhan waxaad weydiisaa takwaag taagan iyada ayaa kaaga jawaabaysa kuwana sharaxaysa waxa halkan ka dhacay waxaan waxba igama gelin buu ku yiri waa in sida ugu dhaqsaha badan leh aad ka saartaa isla markaana aad meeshiisa ku haysaa xaq uma haysatid kadibna warqadda ayuu soo saaraya
inuu sharci u haysto isla markaana ay tani tahay wax sharciya isla markaana wax caadi ay tahay. taasina waxay noqonaysaa wax ka sii yaabiya managerka isla markaana aad ayuu uga naxaya. kadib waxaynu arkaynaa in waxaan oo dhan ay ahaayeen wax looga digay isla markaana tiimkoodu ay u sheegeen inay khaldan tahay. odayga meesha ayaa la soo wacaya loona sheegayaa dhibta meesha ka jirta. odayga guud ee managerka ka ah ama waa managerka guud, kiimkuna waa branch manager ama qaybta ayuu maamulka yahay, kana waa maamulka guud. kadibna waxa uu ku leeyahay waan la hadlay managerkii isla markaana si gaar ah inaan kula hadlayaan doonaya ee gudahayna soo geli u kaadiba ku yiri ana halkan kama dhaqaaqayo kaliya halkan waxaan u yimid xuquuqdii aabaha inaan qaato. halkan macaamiisha lagu qaabilo ma siinaysaa mise ma siinaysaa waan ku ogolahay, laakiin halkan dadka oo dhan bay jooga waxaan rabnaa si khaas inaan kula hadalno ee gudahayna geli. maybe ku yiri kuma gelinayo. waxaynu arkaynaa in odaygii soo baxay isla markaana arrintiini weynaatay loo sheegay, laakiin wuxuu uga degayaa odaygan oo ah odayga iska leh in arrintan sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabto isla markaana sida ugu wanaagsan loo xaliyo, haddii kale isaga ayaa ku waayi doona shaqadiisa. kadibna managerka ayaa ku leh waanu xidhaynaa bangiga isla markaana macmiilkan ayaan arrimihiisa xalinaynaa ee fadlan baxa. kadibna dadkii waxay leeyihiin ilaa loo xaliyo wixiisa ma baxayno, halkan ayaan taagnaanaynaa, wax walbana sidan ayay ahaanayaan. booliska ayaa meesha soo gaadhay. kadibna wuxuu u sheegayaa inuu dhibanan yahay isla markaana uu ninkani dulmiyo isla markaana bangigii iyo shaqadiisaba u kharibay. kadibna waxay ku leeyihiin maxaad halkan aabbaha u keentay? wuxuu ku yidhi halkan waxaan anu buuxinayay keliya shuruucda bangiga, kuwaasoo ah qofka dhaxalka iska leh in la keeno macal haddii uu dhinto. taas waa been bay leedahay, waxba kama jiraan. taas iyaga ayaa igu yidhi isla markaana anu caddayn buuxda ayaanu haystaa. wax walbana waxaa caddaynta inoo duubtay waa kamarada cc kamarada. kadibna waxay ku leeyihiin waxba kama jiraan, taasi wax macquula maaha, kamarooyinkan waan kuwa furi karaa. iyagu xaggooga mar hore ay nadiifiyeen, laakiin isagu falaash ayuu wixii oo dhanba kusoo qaatay isla markaana falaashtan ayay ugu diyaarsan yihiin caddayntiisii oo dhan. wuuna ogyahay waxaan oo dhan inay dhici doonaan. waxa uu sii sheegay mudanihiisa ama looyarkiisa waxaan oo dhanna waa plan uu siyooga inay dhici doonaan. wiilkii ayaa wuxuu yidhi waxaan haystaa caddayntuna flashtan ayay ku jirtaa oo kamaradii cc kamarada waxyaaba ay duubtay. kadibna askarigan ayaa loo dhiibayaa soo qaad labtoobka oo geli baa la leeyahay waxa ku jiraan eeg. waxaa la arkayaa inay gabadha ku tiri waa in la keenaa qofkii hantidan iska lahaa si aad u hanato isla markaana aad u qaadato. kadibna dadka ayaa ku leeyahay bal fiiriya waxaan oo dhan iyaga ayaa ka dambeeyey, haddana isaga ayay la yaaban yihiin. may bixiyaan lacagta iyaga miyaa iska leh miyaan la dhiganuun waxay waxan iyo sida ay u xisaabtamayaan. kadibna wuxuu leeyahay waxaan dhacayaan ma fahmayo, ninkan waa inuu iga dhex qaadaa isla markaana aniga iga dhex saaro meydkan. kadibna ciidanka ayaa ninka ku odhanaya adigu khalad baad ku jirtaa isla markaana xadhig baad mudan tahay sababtoo meyd baad halkan keentay. wuxuu leeyahay anigu halkan sharci baan u haystaa, keliya iskamaan soo qaadin waatan sharcigaan u haysto isla markaana anigu wax walba waxaan u maray dariiqii saxdii. waxay ku leeyihiin ninkani sharci ayuu ku socdaa, mana soo gali karna arrimaha bangigaaga, waa inaad xalisaa, haddii kale de maxkamad ayaa arrintani tegaysaa. waxaan kugula talinaynaa inaad si gaar ah ninkan ula macaamisho isla markaana aad siiso waxuu kaa rabo. kadib wariyaashii ayaa soo hor istaagay wiilkii waxayna yidhaahdeen ujeedadaad ugu weyni maxay tahay aad arrintan u wado? aan wax kale ma rabo buu ku yidhi, mana samaynaya buuq, keliya waxaan u socdaa inaan helo hantidii aabbahay. taas haddii aan helo iyo dhexalkiisiina wax walba waxaan diyaar u ahay inaan xaliyo isla markaana aabbahay aan ku celiyo halkiisii. kadibna waxay weydiinaysaa ma halkan waxaad ugu timiday inaad cidhiiri geliso mise wax kale ayaa jira? may bay ku yidhaahdeen halka anagu waxaan u nimidnay in aan keliya xaqayga helno. kadibna managerkii guud ayaa imanaya, wuxuu dharbaaxayaa managerkii goobta isla markaana waxaynu arkaynaa in lasii ogaabay intayna dhacayso isla markaana uu u sheegay ninkii looyarka ahaa keliya aabihii inuun ahayn cidda hawshan haysato, ay dad badan oo macaamiil ah sidan ku sameeyeen isla markaana macaamiil badan ay u dulman yihiin bangigan. tanna ay tahay dhammaantood in xaqooda loo soo dhiciyo isla markaana laga soo saaro cid walba oo dhiban goobtan isla markaana lacagtooda looga soo qaado. waxa uu canaananayaa managerkii guud managerkii goobtan isla markaana wuxuu ku leeyahay waxaan oo dhan waa khalad. kadibna isagoo dhoola cadaynaya ayuu saxaafadda soo hor istaagaya tan wax yaroo iska fudud waanaan xalinayna ayuu leeyahay. tanna waa isfahan waa yaroo ka dhex dhacay macmiilka iyo shaqaalahayga. kadibna wiilka yar ayaa intiisii ku celinaya keliya hantidii aabbahay ilaa aan halkan kaga tago ma dhaqaaqaya ayuu leeyahay. taasina mar kale waxay kasii xanaajinaysaa lejankii weynaa. wuxuuna ku leeyahay anigu lacagtaydii oon helo mooyaane halkan ka tegi maayo maanta, waa iska hadashay. taasi aad bay uga cadhaysiinaysaa. mar kale ayuu dharbaaxaya managerkii
wuxuuna ku leeyahay waxaan oo dhan adiga ayaa ka mas-uula keliga ayaana jeelka tegaya ogsoonow tanna ciqaabteeda waad maraysaa kadib uu soo jeesanayaa isagoo weli dhoola cadaynaya ninkii kale ayaa raali gelinaya kana codsanaya in uu ka saaro meydka isla markaana wax walba ay diyaar u yihiin cashirna ay ka barteen waxa uu sameeyey taasi laakiin waxa uu cuntamaysaa wiilka yar maaha lacagtayda halaysi ayuu taagan yahay kadib odaygii weynaa ayaa ka codsanaya wiilka yar inay si gaara u wada hadlaan isla markaana si khaas ah ay u wada hadlaan waana la ogaa inuu tan la imanayo tanna hore ayaga soo baarandegeen oo kamarada ayuu wiilka yari kusoo xidhay koorkiisa isagoo looyarkiisu waxaan oo dhan isku soo dabariday waa sharci yaqaan wixiina waa fahansan yahay iyo taatikadoodii kadibna waxaa dhacday in arintii uu wiilku ku yidhaahdo ma igu raacaysaabaa la weydiiyey kadibna wuxuu ku yidhi waa kugu raacaya laakiin ujeedada ugu weynee rabo inaynu halkan kala tegno ayaa ah inaan hantideeda helo odayga ayaa ku odhanaya wax walba diyaaraan u ahay laakiin inaan wada hadalno ayaa ka horeysa markii ay gudaha galeen waxa uu managerkii ku bilaabay wiilkii handadaad iyo inuu hanjabo isla markaana ku yidhaahdo inta noloshiina ka dhiman ayaan blog inaga saaraya bangiyadoo dhan isla markaana tanna inay been tahay isla markaana ay dhimasho beena tahay ayaan ku qoraya taasina aniga awoodeeda waan leeyahay kadib markii banaanka loo soo baxo wiilka yar waxa uu sheegayaa sidii uu la dhaqmay managerku isla markaana wuxuu u sheegay inay tani tahay dhimasho beena inuu yidhi managerku waatan hadda hortiisa taala kadibna managerka ayaa soo boodo been ayuu iga sheegayaa buu yidhi waxayo wax la mid ah anigu maan odhan laakiin wiilkii yar ayaa yidhi hadda la soco anigu waan ku duubaya adiga waa halkan bay igu xidhnayd oo waatan caddayntu kadibna dadkii oo dhan ayuu tusayaa wixii uu ku hadlayay managerku taasi waxay noqonaysaa mid dadkii oo dhan ka yaabisa ki yaraan uu boosti garaynaya fideogii waxuu soo qaadanaya usha laakiin looyarkii ayaa isku dhigaya wuxuuna ku leeyahay waxba kaasiya tani inay tahay dembi kalood galaysid ma ogtahay kadib gabadhii wariyihii ayaa soo hor istaagaysa iyada oo ku qabanaysa kamarada kadibna kamarada ayuu qabanaya dhulka ayuu ku dhufanaya wuxuuna ugu hanjabayaa inuu iyadna shaqada ka heli doono oo ay xidhiir leeyihiin ninka telefishinka agaasimaha ka dadkii oo dhan aad bay ula yaabayaan mamnuucan ayaa tihiin bay leeyihiin wejigiina dhabta ayaa soo baxay waxaa tihiin tuugo kadibna wuxuu leeyahay war aniga intiina yara qof waxba igama kingelin dad macaamiiloo saxana ma tihiin waxaan oo dhanna raaligelin yaroon kamarad kaloon anigu aan soo karistaan ka bixiyo ayaa ku filan intuuna managerka saxda yimin fadlan halkan ka baxa ayuu leeyahay kadibna ninkii kale ayaa ku leh ogsoonow caddayntan aan haysano iyo waxaanaad samayseen oo dhan waa mid aan faafinay isla markaana waa mid aad ku mutaysanaysiin dembi iyo xadhig aanan dee anugu qiyaasi karin dembiyada aad gasheenna 1 iyo 2 maaha oo dhac iyo isku day dil iyo waxyaabo badan baa kamid ah kadib odayga ayaa leh war waxaan waxba igu maaha kilibkan yar diga duubteen iyo waxaan lacagtaan haysto ayaan dhammaantood ku baabiinaya isla markaana dee sidan hore weyn igu sheegay mid been ah ama raaligelin been oo bixiya ayaa ku filan kadibna waxa loo keenayaa ulaha ay ciidanku isticmaalaan isla markaana korontada leh kadibna wuxuu ku leeyahay managerka 5 daqiiqo gudaheed haddii halkan lagaga bixi waayo waa in dhammaantood aad uleysaan macalaamaydka 5 daqiiqo u qabo buu ku leeyahay laakiin waa inay kaga baxaan wuxuu ku leeyahay weliba waxaad anaga nagu amraysaa inaan meesha khasab kaga baxno adiga oo anaga nagu tacdiyaya isla markaana weliba taasaad noogu sii hanjabaysa haa buu yidhi tan awoodeeda aniga iskale waar cidda bixi weydo ule aniga ayaa ku 5 daqiiqana oo qabo haddaba anagu halkan baan joogaynaa ilaa aan helayno xuquuqdayada mana saarayno meydka iyo aniga iyo shacabkan midka ayaan ma baxayo inta uuna managerku yiman fadlan ma iska baxdiin mulkiiluhu buu jeedaa ama qodaygii meesha iska lahaa kadibna ninkan kale ayaa lagu leeyahay baashaad gacanta ku hayso inaad ku mutaysanayso xadhig 7 sano ma ogtahay sababtoo ah qalab ciidan ayaad si khaldan u isticmaalaysaa oo gacmahaaga ku jira taasina waxa ka dhalanaysa 7 sano xadhiga haddii aad diidana ogsoonow tan waa mid ku sii siyaadaysa kadibna anagu amarka manu bixin bay leeyihiin ciidamada security-gu amarka ninka bixiyay ninka ayaana khaladkan qaadanaya tanna waa mid ninka gaara odayga ayaa leh war maxaad iga doonaysiin fadlan iga baxa bangiga ayuu taagan yahay wiilkii yar ayaa ku leh tani waa mid aad ka dhex arki doontiin markii uu soo gaadhay odaygii iska lahaa bangiga goobta waxa uu canaantay oo aad u canaantay odaygii wuxuu ku yiri waxaan oo dambiya intaad galaysay anigu halkeen ku maqnaa isla markaana waxaan oo dhan ayaad hoostayda ka laaqaysay wiilka yar hore ayuu ogaa odaygan inuu neceb yahay wax isdabamarinta iyo laaluushka iyo musuqmaasuqa taas oo kula taliyay odayga looyarka aabiyaha kadibna waxay bilaangareeyeen in ay odaygan laftigiisa sidii meesha ku yimin lahaa ay ka shaqayn lahaayeen tanna waa sababta uu yimid oo arintoodu ay u gaadhay
kadibna waa la canaantay wuxuuna u sheegay in ay wax walba si khaldan u dhaceen assistantkiisa ayaa mobilka u dhiibay u tusay waxa meesha ka dhacay wuxuuna ku yirtaadu ma manager baa tahay mise gangster ayaad wadataa oo team gangster ayaad boosatay meena manager ayaana ayuu taagan yahay hadaan manager tahay waxaan oo dhan sidee bay u dhaceen isla markaana bankiga uu noqdaa goob sidan oo dhan dadka loogu dulaysto odayga ayaa soo jeesanaya wuxuuna ku leeyahay raali noqo wiilkaygiyo laakiin taasi mid aniga ay cunto mise ma habu leeyahay way bahdileen oo aabahay ay bahdileen kadibna odaygii uu canaananaya wuxuuna ku leeyahay tani maaha shaqada aanu needirsaday iyakii ayaa dhexdoodii canaananaya waxayna isleeyihiin iyaka iyo isaga iyo iyada adoo isku turtuur ayaa imanaya la isku eedaynaya wixii meesha ka dhacay laakiin waxa soo dhani maaha wax u cuntamaya kadib odayga ayaa leh labadan waa eris adiguna waxaad galaysaa baaritaan buuxa oo laguma sii deynayo odaygii waxa uu si degan u raaligelinayaa oo ixtiraam ku jiro wiilkii laakiin wiilkii uu diidayaa raaligelinta wuxuu leeyahay dadkii aabahay caayay yani igu xadgudbay waa inay aabahay si kaliya laaba ay u raaligeliyaan saddexdoodii ayaa lagu amrayaa inay raaligeliyaan odaygii dhintay isla markaana ay ku gafeen iyaguna waxay u raaligelinayaan si kaale araga isla markaana jilbaha ayay dhulka dhiganayaan iyagoo naxariis iyo cafis weydiisanaya si ayna shaqadooda u waayeen isla markaana howlaha adag ugu soo furmeen laakiin labadoodanba shaqadoodii way waayeen halka odayga kalena u baaritaan inuu galo odayga uu amray dadkii oo dhan ayaa leh kuwan way u qalmaan waxaan ay sameeyeenna maaha wax loo cuntami karo wiilkii yaraa wuxuu dareemayay inuu culays badan ka degay kadibna waxa uu leeyahay baaritaanka waa in odaygan lagu fuliyaa labadan kalena waa in layga saaraa bangiga isla markaana shaqada waa ka eris waxay sameeyeen kaliya waxan yar maha uu leeyahay waa dambiyaad waaweyn isla markaana looyarka ayaa la wareegaya waxa uu leeyahay kaliya anaka dambigan lagama gelin laakiin waxa jira dad intaa ka badan oo tubanaya gaariga oo akawnadooda ay fadhiisiyeen isla markaana lacag ay kala baxeen tani tuuga kaliya maaha waa khiyaano musuqmaasuq iyo isla markaana dambi maaliyadeed oo aad u weyn kaas oo ay ka galeen hanti khaas ah maalahanti guud maaha odaygii madaxa ayuu ruuxayaa wuxuuna garanayaa falka ay ku sugnaayeen inuu ahaa mid aad u weyn waxa uu leeyahay tani maaha waxaan anigu ii cuntamaya isla markaana qaadan karo hantidayda inaad xadiinayay niga wanaagsaneed intaad hantida dadka ay dhiibteen aad xadaysiin kadibna wiilkay igu soo jeesanaya wuxuu ku leeyahay waxa dhaco dhan waxaan diyaar u ahay inaan ka abaalmayo isla markaana aan 1 milyan ku siiyo laakiin wiilka yar waa diidaya wuxuu ku leeyahay ma rabo in Helsinki dheeraato wixii aabahay xaqayna igu lahaa kaliya waxaan u baahanahay raaligelin aad dadka hortooda iga siinaysiin dhammaan TV-yada dalkana la isugu yeedhayo oo aabahay iyo anigaba la raaligelinayo iyo lacagtii aabahay meesha dhigtay oo dhammaystiran ayaan rabaa inta haddaan niga helo wax kale nigama baahna iyo in xeerashan khaldan aad bedeshiin isla markaana xeerar ka duwan kuwan aad keentiin uu ku raacayaa odaygu waxaanu leeyahay waxaan diyaar u nahay arintaas laakiin odaygu mar kale ayuu 3 milyan soo bandhigaya wiilka yarna arintaa waa diidaya wiilkii yaraa ayaa diidaya 1 milyan oo kaliya codsanaya in xuquuqda aabihii la siiyo iyo raaligelin laakiin odayga ayaa ku odhanaya taasi waxay dhaawac ku tahay bangiga isla markaana in aan hawshan hoos ku dhamayno haddii lacagtu 1 milyan kugu yartayna 3 milyan aan kugu bedelnayaan diyaar u nahay si anagana sumcadayada aan u badbaadino isla markaana xuquuqda ada aan ku siino iyo sayd kiyara wadiidaya wuxuuna leeyahay halkan aanu kaliya xuquuqdayda uma joogo cid walba ay dulmiyeen shaqaalaha ugu isla markaana hantidooda ay ka dhaceen waa in loo soo celiyaa ilaa loo soo celiyeen halkan kama dhaqaaqayno ta kalena anugu ma rabo wax lacaga oo anigu darto kaliya hantidii aabahay ayaan rabaa iyo inaad raaligelin bixiso taas oo siinayso aniga iyo dadkii ay dhaawacan u geysteen shaqaalahaagu isla markaana waa inaanu helnaa xuquuqdayada isla maanta isla hadda isla halkan kadibna waxa uu leeyahay ii dhiiba telefoonka oo waxa uu wacaya tiimkiisa wuxuuna leeyahay waxaan diyaar u ahay in aan ka shaqeeyo ama aan bixiyo raaligelintaas taasina waajib ay nagu tahay sababtoo ah waxaan rabnaa inaan si toos ah u waajahno khaladaadka uu bankiga u galay tanna wataan diyaarka u nahay kadibna waxa wacaya TV-yadii oo dhan isagoo u sheegaya in si dhaqso ah ugu yimaadaan isla markaana uu bixinayo raaligelin toos ah oo saxaafadeedkana lagu qabanayo bankigiisa dhexdiisa isla hadda isla imika isla markaana ay soo dhaqsadaan oo soo haysto dhammaan saxafiyiinta oo dhan sida ugu dhaqsaha badan leh ayaana loo qabanayaa buu ku yiri war saxaafadeedkan imika ayay noo imanayaan diyaar waxaan u nahay
inaan halkan iyo isla imikadan aan bixiyo kadibna way soo gaarayaan wuxuuna sheegayaa inuu aad uga xun yahay waxa halkan ka dhacay kaliya ay maqal ku ahayd isla markaana dhowr cabasho ay soo gaadheen laakiin maanta ugu dambeyn uu taagan yahay una arkay waxa halkan ka socda shaqaalihiisu ka wadaan tanna maaha waxa uu cid kale ku eedeynayo waxa iyagu mas'uuliyadeeda ay qaadayaan isla markaana ay kala xisaabtami doonaan cidii gashay cid walba xuquuq halkan ku lahayd xuquuqdeeda way helaysaa ama ha joogto cidii lahayd ama sayay joogin muhiim aha qof dhintay in la raadiyo saxiixiisa haddii dadkii dhaxlayay ay joogaan waxaan diyaar u nahay inaan bixino oon siino xuquuqdooda oo aan anagu madaxayga saarano tanna waa mid ay hortagi doonaan maxkamadaha oo lagu ciqaabi doono cidii falkan gashay kadibna waa foorsanaya isagoo raalgelin siinaya sida ayaa lagaga soo saaraya bangiga meydkii wuxuuna ku noqday meydkii iyo wiilkiiba kuwo aad looga tixgeliyo isla markaana looga ixtiraamo deegaankooga halkana kaliya iyagu xaqooga may soo dhaxsan ee waxay xaqooga u soo dhiciyeen dhammaanba cid walba oo ay ku lahaa hanti bangigan kuwiina waxaa loo dhaadhiciyey jeelka waxaynu arkaynaa in xabaasha dusheeda ay kusoo booqdeen dadkii kale ee hantida laga haystay isla markaana iyagoo u mahad celinaya iyagoo kule anagu xaaladeedu aad u xun tahay isla markaana aanan u diyaarsanin waalidkaygu naga dhintay ayaa lacagtii loogu talagalay inaan kusii noolaano ay bangigu naga haysteen taa inaan dib u helnana abaalkeeda adiga ayaan kaaga haynaa haddaba su-aashu waxay tahay maxaynu ka baran karnaa muuqaalkan qaybtanna waa qaybtii ugu dambeysay bal magaalada aad kala socotay taxaniheenan commentiga inoogu soo qor muuqaalkan muuqaalka xigeenteena ku kulmaynana nabaday